بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دماوان هنتي السلام يا مدح دقرك هالكن فرديدا يا مرت شرف كبا يا قرق بوجدا كنتي بوجن ما كان سيدا اكتبان كيسو حلكاس كلمة حلكاس لا يراضو ما أنت ما كان أخرده بوجن كشكينا يا هرمرك بني آدم كان بوجن وقصة ما أنت بضع بوك استوى وكان مبدأ قوة هذا أخرده بوك قري ستيفن تطبق استفاء اللي تقول يستي ومبدأ قوة responsibility هذا أخرده بوك قري تشاك لا success principle هذا أخرده ومبدأ قوة هذا أخرده the road to success وفي أسفر بوك إيش يوقع سامين تبضع ومبدأ قوة أي بوك سوق هذا تو مبدأ قوة واحد ينقفك إلا ونفتي سا ومسؤول كان نقضاء آمين يسوي وحسن كرا لأنه هروس عكري marka buuga marka soo eegto waxaad moodaysaa hogaaminta kale inuu ka sheekeynayo laakiin sababtii buugu marka eegto si aad u la yaab loo dhigo sheekada wuxuu ka bilaabayaa war qofku ilaa uu naftiisa si sax ah u hogaamiyo ummadda ma noqon karo marka buuga waxa laga bilaabayaa qofku horta isaga inuu isbedel sameeyo naftiisa isbedelka wuxuu ka bilaabayaa buugu qofku inuu meel u socdo ay jirto cad inay jirto kadibna mabaadi aad u qiimo badan runtii ayuu soo taxayaa markaas haddana wuxuu ku dhex geynayaa maxaad horta adigu aad tahay naftaadu ka sheekeynaya inaad adigu isbarato taa markuu si fiican u fahanto haddana muxuu ku dhex geynayaa passionkaaga maxaad jeceshahay maxay tahay inaad adigu aad ka shaqayso taa marka aad ku baro haddana wuxuu ku dhex geynayaa maxaad horeysiinaysaa maxaad wax ku bilaabaysaa halkeed wax ka bilaabaysaa haddana uu ku waday wuxuu ku dhex geynayaa sideed saameyn u samaynaysaa saameyntuba kugu dhex geeyo ayuu haddana wuxuu ku dhex geynayaa inaad bini aadan tahay aad fashilmi karto marka dhaban adeeg iyo sabir iyo sidaad hawsha u socodsiinayso oo hadana ku baraya adigoo sida u sii socdo guushii dul taagan ayuu ku oranayaa hogaamiye ma noqon kartaa ummadda hogaamintiibu hadaba ku dhex gelinaya oo runtii ku tusinaya sida ururada loo hogaamiyo iyo ummadaha loo hogaamiyo run ahaantii intii Soomaali buugay qoraysay buugii ugu fiicnaa aan ka akhriyo horumarka bani'aadamka fiilka runtii buugii aan ka akhriyay intii ugu badneed kuwa caalamka ugu akhriska badan leh markaan la eego kan ma kan akhrinayay markasta waxaan arkayay mabda caalami oo la aqoonsan yahay inuu research ku sameeyo researchkii soo bandhigayo tusaalayaashii soo bandhigayo qaab cilmiyeysan oo ka daaleen oo markaad akhrisaad ku raaxaysanayso aad u mahadsantahay gariiqan mubaarak